wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha mudane Axmed Muumin Seed ayaa maanta xarunta wasaaraddaasi kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminayo safiir ku-xigeenka waddanka Jarmalka u fadhiya waddankaasi Kenya oo dhawaanahanba ku sugnaa dalka. ujeedada kulankani ayaa waxay ahayd sidii Jarmalku gacan uga geysan lahaa mashaariicaha lagu horumarinayo wax soo saarka dalkeena. ugu horreynna wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland mudane Axmed Muumin Seed ayaa markii kulankani soo ilaaday warbaahinta u sheegay waxay ka wada hadleen wafdigan uu hogaaminayo safiir ku-xigeenka waddanka Jarmalka u fadhiya waddankaasi Kenya. wasiirkuna waxa uu yidhi maanta halkan waxaa nagu soo boqday wasaaradda beeraha horumarinta beeraha safiir ku-xigeenka Jarmalka oo runtii wafdiga hogaaminayo waxaan ka wada hadalnay mashaariicda runtii ay dalka ka wadaan wasaaradda beeraha way nala shaqeeyaan iyo wixii dambe runtii imanaya sidaan ugu wada shaqeyn lahayn marka runtii shirkay ku saabsanaa safiirka iyo wafdiga hogaaminaya runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaya. safiir ku-xigeenka waddanka Jarmalka oo u fadhiya waddankaasi Kenya ayaa isaguna sheegay in mashaariic kala duwan ay Somaliland ka caawiyaan isagoo sidoo kalena xusay in wasaaradda beeraha ay ka caawinayaan mashaariic dhawaan la bilaabi doono oo lagu horumarinayo beeraha ama wax soo saarka dalkeena. And Germany is happy to support a project here in Somaliland on sustainable resource management, sustainable land management in the BG water catchment area. Project is soon to begin with first smaller and simpler measures, and then in the next step more complex infrastructure works will start. So it's a project of the minister, it's a project of the administration. So I hope that this project will be a very good success.